نلشطني وكديد هدف الحياة هدانت فهمنا أدو دالن وبدقوت كجلسة أدو دالن أما مدحوين النقاء أما تاجر نقاء أما بليونير نقاء أدو دالن بالله مرو يرير لغا قد وطوبة يا وحكا الراعي يعني شرين وعلى لي واحد ودا شيء وحبكا الراعي مايا وحبكا الراعي مايا مدحوين أنا هانشري اللعق بالله هانشري هبل بالله markay marada kugu duubayaan bay meydku bixinaya hatta magacaaga hilmaanaya dib loo oran maayo madaxweynaha xabaash si fiican u dhiga ama taajirka xabaash si wanaagsan u dhiga ama hebel xabaash si wanaagsan ay ku oran mayso meydka iyada lagu leeyahay uma lagu sii wadaya hadaad buul ku jirto buulka waa lagu gamaa Soomaha alla saxda hadaad daarta ugu dheer lagu saarana waa la saxdaa wax ka badan laga ma soo helo soo buulka lagu ma gamo daartana waa lagu gamaa waxa naftu raadinaysaa waa maxay waa inay gamaado inay maskaxda tan mashquulka ka yara baxdo la seexiyo si ay mar labaad u shaqeyn karto meel kasta naftu way seexan kartaa min Soomaaliyeed baa wax laga sheegay hurdaan macaanayna ma seexan cunaan macaanayna ma cunin weedhacaynkaasa laga sheegay saddex mas'alo hurdaan macaanayn ma seexan buu yidhi markaan u baahno ma seexda markaad u baahantahay markaad seexatana haddaad dhagax dushiisa ku seexato waad gamaysaa waa kaa imanaysaa markaad see u baahnayn haddii lagu saaro sariiraha ugu fiican gami maysid oo burburaysaa cunadana waxay yidhaahdaan wuxuu yidhi cunna aan macaanayn ma cunin waayo anoo gaajoonayaan baan cunaa buu leeyahay gaajadu waa iidaan adigoo gaajoonaya dib wax lagu siiyo berigii qaxoontiyada la joogay ninka koob shaaha hela wax ka macaani ma jirin saxiixa maaha ama yaro garawga hela garawga caduftaada iidaamaysa waayo gaajada wax waliba waa macaan noloshu waa sidaa maalin walba kaad heshaaba kula qadhaadhaanayo ka kaa maqan ba kula macaan maanta haddii garawga lagu siiyo dhadhami maayo shaahina dhadhami maayo waayo ka kale sii maqan baa kula sii macaan biisaad raadinaysaa laakiin berri markay biisadu kaa ag badatana dhadhami mayso kuwa biisada haysta inaanay u dhadhamin soo ma ogidin ma dhadhanto idan nolosha hadba inta maqan baa macaan oo qofku isleeyahay war malaa intaa haddaad gaadho wuxuu isbedeli lahayd هذا مال عدلا فرديات سكوكا عنيسا لكن انت مركز قادنا اسبدل ماله سيدا وقيت نلش waxaan TV-yada laga akhrinayo iyo warkan yaan leedin mashquulinin waa beena waxba ka jirin dunida dadka istilayaga isugu dil badan reer galbeed maaday barwaaqada hada sheegayaan soo saama ogidin statistics-ka dunida dadka naftooda dila waxa ugu badan galbeed waxaana ugu yar caalamul islaami Afrika kuwana waxba haysan ayaa ugu yar dadka isdila qof bini aadam oo isagu naftas ka qabta dadka isdila waxa ugu badan kuwa galbeedka jooga haday baraartay maxay isu dilayaan may noolaadaan wadhalanteedkii dadkii gaaray way cuntay weeydi dabeetana ka tagabay siraadeen mala xaga kala buu warjiraay idan ayuha alhibba taladu waxa weeyaan ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso saga abuuray sagana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha Allah inoogu soo dhiibay rusushana waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno qof bini aadam oo qumman oo toosan noqono si aynu natiijada wanaagsan aakhiro u heli karno adduunkana waxa la inoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii la inagu imtixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno دي عافماد لو سييرد مهد نقدي هداد حروستنا إنت صبرتد هدي نلاشو سيدا نقطة ويفضودانيس ددنيا معانا ويالانيسا ويطمانينة القلب قفقه هدوها له يا إلهي الرالي أهنشيسا وحكم غنيمة جيران ولذلك بقى علماء دي وين الركم ده إبراهيم بن الله تبا وحلقة شهده وعلى يدي
jeex roodhiyo qallalan ayuu webiga furaad darsaday. roodhi qallalan hadda qiyaas ayuu webiga darsaday, markaasuu goostay. nimcadaannu hayna hadday boqortooyada ogtay buu yidhi way nugula diriri lahayd. ninkaasi roodhi engegan buu adduunka sitaa, wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya, webiguu daraya si uu raamin karo. waxaanu leeyahay low calamat ilmuluuk, hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaanu nimco hayno way nugula dagaalami lahaayeen. waayo ninkani طumaaniinatu اlqalbi buu hayey, ilaahay buu rumeeyey, caabuday, ku kalsoonaaday, noloshuu u arkayay waxa ay tahay, dhadhankeeduu garanayey, nolosha hadafka laga rabuu garanayey. sidaa awgeed bay u fududayde u arkayay nin cala ariiqa jidkii saxaxa haya inuu yahay. idan waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiyaaye waa waxa kugu jira iyo waxa aad dareemayso iyo sida aad u fakerayso iyo waxa hamiga ku haya, kaas baa qofka ah waxa farxad geliya. waxaan ku soo koobaya warka markaa in madaxweyne la noqda guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday. in lacag badan la helaa guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday. in magac weyn la helaa guul maaha, waa mas-uuliyaad la kororsaday. laakiin ama madaxweyne ahaw ama taajir ahaw ama magac lahaw ama miskiin ahaw, inaad ilaahay raalli gelisaabaa guula. idan qof waliba wuu guulaysan karaa bimaa cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa. waxaad haysataa intuu leeg yahay. haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa. alimaamu alcaadil 7 jannada carsh araxmaan harsan ayuu ka mid yahay. haddaad nin dhallinyaro oo dhowrsoonoo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa. shaabu nasha'a fii cibaadat illaah waad guulaysan kartaa. haddaad qof yacni mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna. adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna. waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah, waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah, waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh, waanaad kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah. intaba kadeedku wuu la socon karaa, guushuna way la socon kartaa. idan guush iyo kadeedku ama guush iyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegya kuma xidhna. kaa kuma xidhna. waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidh la leedahay, inta aad nolosha macnaheeda fahmayso, inta aad garanayso maxaad u nooshahay. qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin, se uu yidhaahdo mar qura nasan maayo, ou daalo daalo daalo, muxuu kororhsaday? waxba ma kororhsan soo maaha. laakiin haddaad hadaf leeday, haddaad rabto inaad berbere gaadho, waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa. waa hadaf muxadada. nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo, 60 sane ama 70 sane lagu siiyey way dhammaanaysaaye, haddaad hadaf ka yeelan weydo oo ah inaad rabbigaa raalli geliso, jannana raadacaysatid, naarna ka badbaadid, hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo, noloshu qiimo ma leh. wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh. waad kadeedanta, inta kadeedan baad ku jirtaa. haddaad intaa fahamtana inta guulaysataad ku jirtaa, walow aqoontaadu ha yaraato. tusaalaan idin siin. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya xadiidka bukhaari ayaa nin soo maray. qoladii la fadhido yidhi bal ninkaa ka warrama. waxay idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weydiisto waa nin gabadh la siiyaa bay idhaahdeen. hadduu shafeec erga kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo. hadduu hadlana waa nin la dhegaysta bay idhaahdeen, mudan in la dhegaysto. yacni bini aadamku wuxuu wax ku qiimayn jiray. haddii gabadh lagaa soo doontana waa nin dumarka la siiyo. hadduu dankaa yeesho shafeeca kuugu yimaadana waa nin magacio ergadiisa la aqbali karo. hadduu hadlayana waa nin la dhegaysan karo. nebigu wuu iska aamusay, ma comment garaynin. mid kalaa soo maray, markaasuu yidhi kaa ka warrama. markaasay idhaahdeen hadduu gabadh ku weydiistana mid loo guuriyo maaha,
hadduu erga kugu yimaadana ergadiisa ku la aqbala maaha hadduu hadlana kula dhegaysta maaha bay yidhaahdeen yani nabigu wuxuu barayaa saxaabada mawaasiinta maxaa wax lagu qiimeeyaa bini aadamka see loo qiimeeyaa dabeetana wuxuu yidhi lamil'u haada min daak kaa hore iyagu lahaayeen waa wax walba wuu yahay dhulka muggiyo kaasa ninkan baa iskaga khayr badan buu nebigu yidhi waa hal nin iyo dhulka muggiyo kii kale ah maxaa halkan nin iyo dhulka muggii isweydaariyey waxa isweydaariyey mawaasiinta wax lagu qiimaynaya kala nooc ahaa waayo dhulka muggiyo naar ku sii socda geedi naareed ah faa'iido ma leh xabad jannada u sii socotaa dhaanta soo maaha hal qof xagga jannada u socda iyo dhulka muggiyo xagga naarta u guuraya dee faa'iido ma leh walidaalika buu nabigu wuxuu leeyahay dhulka muggi oo kaasa qof quroo kaasaa dhaama ayuha alaxiba waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalday wixii ay wax ku qiimayn lahaayeen waxay wax ku qiimayn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaasi maaha wax lagu qiimeeyo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha mise gaadhuu wataana qiimihiisu maaha gaadhigu wataa noocuu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahay u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtaa yahay taasun baana aakhiro marka la isugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo wax haystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn marka sidee su-aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nebi maxamed ina raacdaan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog roontay waa cadaalad samee salaada iyo zakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahna waa in qof waliba awoodi karo idan waxaan rabaa inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadha haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nebi maxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nebigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii raacaana jannuu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyn tahay kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaanad haysanin kuma xidhna inaad madaxta iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badanta iyo inaad cilmi yartay waxay ku xidhantao keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeedisa un directionka aad u jeedeen raacaysa ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya adoo faqiir iyo adoo waxhaysta iyo adoo maamuslaba ta xagga naartana intaba waa lagu mari karaa labadaa waddo inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leeg tahay ilaahay waxaan